halkaan haddii aad joogtid aad leedahay awood iskaytay kartid iskaga tag haddaa qurbaha joogtidne meeshaan aad isku imaanin meeshaan dala kaaga soo horeey maahane dad ma kaaga soo horeey bahala kaaga soo horeey laba dhacdo xanuun badan ka diiwaangeliyay qarax shalay ka dhacay isbitaal Madiina joogay dhacdada koowaad ka diiwaangeliyay waxay ambalaasyada isbitaalada uga shaqeeya dhamaantooda meedka ay ka soo qaadeen goobta qarax ka dhacay ee isbitaalka ay keeneen markay dadka dhahan walaalayaal oo meedkan ay qaad guriga ku dhaganaa deganay waxay leeyihiin $40 hadaada wadin meedka haga saarin lugta saar $40 waay ambalaasta xaq uma lahan meedkii ayada ay keentay inay haddana si canshuurto dhacdada kale iyo waxaan u badnaad waxay afar naagood meesha joogeen laba meed isku toosisteen labada meed markay isku toosisteen saddex kamid ah waxay leeyihiin naagtaas u jeedin labada cuniga meesha ugu soo dhimatay waxay ku qaadataan meesata hala caabiyo Soomaalina waa taqaanaa dad aad u calool jilcan waa inay ku soo wada shumumeen lacag loo wada loo diray mobilkooda markay buuxsamay anna waxa ku mashquulay maghrib aadistiisa ku mashquulay iyo meed naga maqnaa aaraadineen oo markaas la keenay ku mashquulna waa ka kala tagnay markaas soo laabanay afartii naagood wax ka joogay ma lahan lacagtooda ay aruursadeen meedka meeshiisa uga tageen bartii ku dhaqaajiyeen damiir iyo dadnimo iyo Soomaalinimo wax la dhahay way dhamaatay wallahi 20 nin ku dhawaad oo raga aheen afartaas naag iyo soo sameeyay hada ku soo kordhicleen wallahi waxay go'aankeen aad meedadkaas ku daba darleen 20 nin anaga wana ahayn afar naag manool dileen meeshan dal ma kaaga soo horeeyo dadkii iyo dalkii buu isku kor dhamaadeen damiir ma lahan caruurta qofka lacagtaas qaatay wuxuu ku sameyn karaa ama asaga ku labisanay ama asaga cunaa ama caruurtiisa siinaa markaas waxa uu leeyahay dalkan waxa uu soo baxay ubax dalkan uu soo baxay dhigi cab kala soo korinooya